idinku oo jooga waliba saad ii sheegtay maalinta hore jigjiga ayaa joogtay shaqaaqadu dhacday maxaa koosgareeyay in la idin kala dhaxbaxo haddii aad tirada intaa la egtihiin horta runtii waan ka xumahay arrinta aad u fahanteen ma aha runtii waan ka cudurdaaranayaa inaad saa u fahantaan ma aha xaqiiqada jirtaan kuu sheegaya cabdi maxamed cumar sida lagu qaaday haye cabdi maxamed cumar mishin baa loo dhigay si nabadgelye abuuna airbortka garaadwilwaal kaga duulay waana la mishimay xaggaa markuu tegayna waa la qabtay waa la xidhay xoogna laguma kaxaysan qaab kalena laguma kaxaysan ciidanka keliya saraakiisha keliya maalinta jigjiga joogtay baa 7,000 kun oo askari ahayd 3,000 oo askari oo 7,000 sarkaal baa joogay iska daa ciidanka tiradiisa saraakiisha markaan ka hadlayno madaxweynihii deegaanka marka la kaxayn doono ee shaqaaqadu dhacday federaalka meesha yimid 3,000 oo askari kamayna badnayn baanu xog ku haynaa idinkuna waa tiro badnaydeen sida naloo sheegay laakiin waxaa laydinku eedeynayaa inaad ahaydeen dad u rabaysan gumaysiga shacabkooda oo keliyana u hanjaba hal askari oo xabashayaana ka baqa dhaliil miyaana idinku ahayn in laydinka dhex qaaday idinkoo tiro ahaan gaadhayay 30,000 in ka badan sida aanu xogo ku hayno askarta federaalkuna ay 3,000 ahaayeen walow la sheegay markii dambe inuu gurmadu yimid askarta horta federaalku horta nafina naf kama geysana nafina naf min qof waliba naf wata qofna naf isleera ma wato askarta anagu maanaan mataqaanaa ka cabsaneen waad ogey maalin shaqaaqadu dhacday inay jid aanu marro noo bannayn afkoodii laga gatay oo ay hubka dhigayeen si dadka iska daa annaga ee dadka shacabkii hubka ka qaadanaya madaxweynahaana naga hortaagnaa annagu inaanu xabad ridno saasayna xabadii ku baaqatay markii dambena hawl uu isagu rabitaankiisa abuu meesha ku tegey xoogna laguma kaxaysan xoogna looma adeegsan markii xagga uu tegayna sida doonaan laga yeelay marka aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu codsanaynaa in si degdega loo soo celiyo madaxweynaha taliyihiina waa kuma imika ciidamada liyu booliska haddaad tihiin taliyuhu waa mawsir taliyaha cusub madaxweynuhu shalay magacaabay waa mawsir cabdiraxmaan generaal cabdiraxmaan cabdullaahi buraale laba go-le korneylkii hore ee shalay naloo sheegay in la bedelay xaguu ku sugan yahay waktigan cabdiraxmaan waa nin soo halgamay waa nin mujaahida waa geesi uu gobolku leeyahay oo gobolka soomaali galbeed uu leeyahay waa nin si fiican u soo shaqeeyey waanu mahad celinaynaa wuuna joogaa meelihiisii hawlba joogi jiray buu joogaa jigjiga waa uu ka baxay wararka aanu ka helayno dhinaca jigjiga ila xogoogaali waxa ay noo sheegeen inaanu joogin waktigan caasimada jigjiga ee deegaanka markii xilka laga qaaday kadib in uu u kacay dhinaca uga baxay magaalada isagoo ciidan wata maxaad idinku xog ka haysaan maadaama uu ahaa taliyaha aad idinku ka amar qaadanayseen intii ka horreysay maalinkii shalay ahaa waa ninkan horta nin madaxa weeye oo dadka deegaanka iyo dawladdan cusub ee hadda tiinda ay xishmad badan iyo maamuus u hayaan jigjiga u buna jooga waxaan wax ka jira male laleeyahay meel buu baxay aad sheegaysan ama hadda adaaban kaa maqlaa